السلام عليكم asxaabteyda qaaliga dhamaantiin kusoo dhawaada kuukimi saacada dhamaantii ku xusubtiina kusoo dhawaada family subscribe saar gambaleelkana furo video walbaan soo gelisay dhaqsiga kusoo gaaran soo asxaabteyda qaaliga maanta waxaan sameynayaa doolshi aad iyo aad u macaan badan oo ciid sameysan kartiin oo aad u fudud waxay rajayna dhamaantiin inaad ka faa'iidi doontiin asxaabta maanta ku xusub kusoo dhawaada channelkayga kuukimi saacad channel labaad ayaan leeyahay qurxinta daawil arkin magaciisa waa kay kusoo dhawo linkiisa waxaan soo gelinaa videogan haddaan soo gelinaa comment-ka dhexdeeda linkiga pinaya saaraya linkaas markaa raacdid waxay ku geenaa channelkayga oo qurxinta sidaas oo soo booq kartaa waxyaabo badan oo la isku qurxiyo ayaan soo geliyaa channelka qurxinta kusoo dhawaada marka dhexdiin sidaan u sameynaa keekiga maanta sidaas la socda dhamaantiin daawasho wacan marka asxaabta sheeg horaan u baahnaa waxa way sukar waaye baaqlagaas waxaan ku shubanayaa hal bakeeri sukar cad kadibna waxaan ku darsanaa ukunta aan ka sameynaa maanta keekiga 3 xabo ukun waaye marka hore waxaan ka isticmaalaa ukunta qaybta cadka ayaan u baahanahay ukunta qaybta jaalaha meel ay iska dhigay marka hada intaas ukunta qaybta cadka ayaan ku dhex daraa sukartaas dhexdeeda kadibna waxaan sameynaa marka hore labadaas shay si fiican isku garaacaya kadibna markuu cream oo kala noqdo waxyaabaha kale aan ku daray sida kale aan u sameynaa idin tusinaya marka doorshiga aan sameynaa maanta 3 ukun ayaan ka sameynaya hadaa rabtid 4 ukun ayaa ka dhigi kartaa marka aniga 3 ukun marka laga sameeyo qiyaas qurux badan oo macaan badan ayaa kaaga soo baxaya marka inta asxaab ukun zaid jecleyneen soo sadaan ay u sameysan kartiin 3 xabo ukun ayaa ka sameysan kartiin soo ukunta zaid ma kugu soo shiirayo doorshiga marka ukunta ka yareysid laakiin dhadhankiisi sema ay ku noqonada 4 xabo ku dubtid 5 xabo ku dubatid ukunta sidii ay ku noqonaya jis ukunta urkeeda ayuu yacni kala duwan yahay laakiin dhaxdiisa dhadhankiisa ayuu noqonaya marka 3 xabo ukun ayaa ka sameysan kartaa asoo hadoo aragteen ukunta qaybta cadka iyo sukarta cadka si fiican isku garaacaya sidaas creamkaas inuu noqdo ayaa la rabaa markuu sidaas noqdo waxay ku macneynaa inuu sukartaas si fiican u dhilaale sidaas ayaa la rabaa kadib waxaan ku darsanaa ukunta qaybta jaalaha ayaan ku darayaa 3 xabo ukun ay ahay marka hore qaybta cadka ayaan ku daray marka sidaas aan u garaacay kadibna waxaan ku darsanayaa ukunta qaybta kale oo jaalaha ayaan ku daray soo kadibna waxaan sameynayaa si fiican aan u garaacayaa ukuntaaseti kadibna waxyaabaha kale aan ku dar doonaa sida kale aan u sameey doonaa idin sinaaya doolshi aad iyo aad u macaan badan waa aad iyo aad u fudud oo waxyaabo duwan aan ka sameynayo aan ku darsanaa oo dhadhankiisina gooni ka dhigayso soo marka waxaan rajaynaa dhamaantiin inaad ka faa'iidi doontiin asxaabta soo hadda marka sidaas ayaan ku wadaaya waxyaabaha markaan ku darayno idin tusi doonaa insha Allah هذا ديار marka ukunteena sukarta si fiican aan isku garaaco aragteen sidaas ayuu noqday creamkaas marka waxaan u baahnaa inaan ku darsano subag ayaan ku darsaneynaa subagaan isticmaalaa midka blue band ka rootiga la marsado kaas aad ku darsanaysaa 2 qaad ayaan soo dhilaaliyay marka kan aniga aan isticmaalaa wax yar ismaal dhar cusbo ayuu ku jiraa marka keekiga cusbo ma ku darsanayo subagaas markaan ku daro enough waay laakiin adiga hadaa ku darsanaysid subaga cusbo la'aanka ah wax yar cusbo meel dheer ee far iyo suul xataa uu badan yahay meel dheer cusbo ayaad ku dareysaa laakiin hadaa yacni blue band ka cusbo isticmaalaysidna bas cusbo kale ma ku dareysid 2 qaad ayaa ku darsanaysaa marka sidaas la socda wax yar meel dheer cusbo ayaad ku dareysaa hadaa blue band ka caadiga isticmaalaysid cusbo la'aanta ah laakiin blue band ka cusbo ku jirada isticmaalaysid marka wax yar cusbo inaad ku dartid ma loo baahan blue band kaas cusbo ayuu ku jiraa dhadhan macaan badan ayuu yeelaa keekiga kadibna waxaan ku darsanaa caano ayaan ku daraa caanahan asxaabta waa aragteen hal bakeeri oo 5 meel loo qeybay qiyaastiisa caano ayaan ku darsaday marka sidaas la socod caano badan ma la rabo wax yar caano aragteen koobka qaybta ugu dambeysa hoos cabirkeeda ayaan ku shubay kadibna waxaan ku darsanaa liin ayaan ku darayaa orange waaye orange ka aan soo miiray midka jaalaha orange ka hal xab yar qiyaasi ayaan soo miiray idin tusinayaa orange ka isticmaal noocaas waaye marka halkaas xab yariis ayaan soo miiray ayaan ku darsaday 2 qaad qiyaasiisa oo kala waaye kadibna waxaan ku darsanaa vanilla ayaan ku daray marka saxabta vanilla carfiso waaye zaid ayuu carfinaya hal qaad ayaan ku daray kadibna waxaan ku darsanaa hal qaad oo kastar ayaan ku darayaa kastarka boorborka hal qaad ayaan ku darsanayaa kastarka saxabta ayuu yeelaa doorshiga dhaxdiisi macaan jaalo ayuu ka dhigaa kadibna caraf gooni ayuu yeelayaa marka keeka sameysan jirto oo kastar ku darsanin kastar ku darso dhan oo gooni ayuu yeelayaa kadibna caraf oo macaan badan ayuu ka dhigaa keekiga zaid ayuu carfayaa marka sidaas darteed ayaan ugu daray kastarkaas adinkana insha Allah ku darsado arki doontii dhadhankiisi
iyo siduu noqonaa keekii markaa ku darteen. soo hadda wax yariis ayaan wax sameynayaa kastarkii iyo waxyaabihii dhan aan isku daray si fiican aan isku garaacaya marka hore, kadibna waxyaabaha kale noo dhiman aan ku darsanayna idin tusinayaa. kadib waxayaan ku darayaa bur ayaan ku darsanayaa. burkana intaan ku daraa hal bakeeri iyo bar qiyaastiis oo bur ayaan ku darayaa. bur badan ha ku darin hadhow adeegayuu kaa noqonaa keekiga. soo hal bakeeri iyo bar bur enough waaye inta aan sameeyey intaas ayaad ku darsanaysaa. so markaa daarabtid doorshigaaga jilic safta inuu kuu noqdo dhexdeeda burka ha ku badanin. kadibna hadda waxayaan ku darsanayaa baking powder ayaan ku darayaa. baking powderka intaan ku darayna hal qaadir qiyaasiis oo baking powder ayaan ku daray. kadibna hadda waxayaan sameynayaa markaa si fiican aan u garaacayaa, zaaid u garaacin, jas waxayaa loo baahan yahay burka si fiican inuu ugu qasmo, burkana kuuskuus inuu kaa galo ma la rabo. marka mashiinka markaa isticmaashid si fiican aan u qasayaa waxyaabaha dhan, burkana kuuskuus markaa naqanayo. laakiin haddaa qaado ku qasaysid ama bir haddaa ku qasaysid marka waxayaa sameynaya si fiican u qas, doorsho kuuskuus ay kaa naqanin burka. so marka sidaas ayaan sameynaya makiinadaaseed ilaaho 50 second oo kale sidaas ayaan ugu garaacaya. kadibna sidaas ayuu diyaar ku noqday. waxyaabo kale manoo dhiman aan ku darsanayno. marka sidaas la socda. inta asxaab heleynin oo vanila heleynin hel ayaa ku darsan kartiin, laakiin vanilaha zaaid ayuu carfinaya keekiga. haddaa jeceshid keek inaa cuntid oo ukuntana urkiisa ku dhibaayo marka vanila ayaa ku darsan kartaa. vanila strong waaye, yacni keekiga dhan waxayuu ka dhigayaa vanila inuu ka carfo, yacni cream oo kale ayaa dareemaysa, laakiin ukun dhan maku soo shiraayo. haddaa laakiin oo haysanine heel haddaa haysid heel shiidan kaas ayaa ku darsanaysaa, doorshigu ku carfinaya. so marka asxaabta waa aragteen hadda si fiican aan isku qasay. liishadaas ayaa la rabaa. kalarkiisana waa aragteen doorshiga markaa kastarka borborka lagu daro sidaas ayuu ku naqanaya, dhexdiisa dhan jaalo ayuu naqanaya. orange ayaan ku daray, yacni keeki aad iyo aad u macaan badan oo nafaqeysan waa gudihiis waxyaaba badan oo aad iyo aad u dhadhan leh aan ku darsaday. hadda diyaar waa marka waxyaabaha dhan si fiican aan isku garaacay. so hadda waxayaan diyaarsanaynaa birtii aan ku dubi lahayne. asxaabta hadda birta aan ku dubaa waxayaan sameynayaa bur iyo wax yar oo saliid si fiican aan u marinayaa. gees walba ka mari bur iyo saliid si hadhow markaa doorshiga birta aad ku dubtid ma ku dhegeyso. so markaa afka dhinaca gees walba inaa ka marisid waa birta dhan. bur iyo waxaad marinaysaa wax yariis oo saliid ah gees walba ka mari si hadhow keekay markaa dubta dhaqsi inuu kugu soo saarmo. sidaas ayaan sameynaya marka sidaas ayaan u marinaya saliidaas iyo burkaas. kadibna diyaar waa marka keekigeeni aan soo garaaca cajiinka ayaan ku shubayaa. kadibna waan sii dubayaa. marka asxaabta foornaha already waan daaray 180 waa kuleelkiisii 25 ilaa 30 daqiiqo ayaan ku dubayaa keekiga si fiican gudihiisana u huursanaya, si fiican u dubmaya. marka sidaas la socda foornaha kor iyo hoos ayaan u daaray 180 ayaan ka dhigay kuleelkiisii 25 daqiiqo ilaa 30 daqiiqo ayaan ku dubanaya keekigeeni. waqti badan ma ka qaadanayso. so markaas adinka hadda foornaha isticmaalaysin caadinka isticmaalaysin ayuu ku xiran yahay. aniga marka kor iyo hoos markaan u daaray 180 ayaan ka dhigay kuleelkiisii. kadibna 25 daqiiqo ilaa 30 daqiiqo kadibna diyaar waa keekigeeni. sidaas ayuu kusoo baxay. kusoo dhawaada dhammaantiin asxaabteeda qaaliga. I hope inshallah dhammaantiin inaa ka faa'iido aan uga talgalay. I hope adinkan inaa baroowey doontiin. marka keekigan ayaa sameysan kartaa, maybe asxaabtaada haddaa kuu socdaan ama familka ayaa u samey kartaa. kusoo dhawaada dhammaantiin asxaabteeda qaaliga. dhexdiisin sidaas ayuu noqdo waa aragteen. marka waxaa rajeynaa videogan dhammaantiin inaa ka faa'iideen. videogan haddaa ka faa'iideen videogan like-tiisa sii share gareysii walaalaha kale asxaabtaada arkaan ay ka faa'iidaan. haddaa maanta nagu cusubtidna kusoo dhawaa familka subscribe saar gambaleelkana furo video walbaan soo geliysay dhaqsay kusoo gaaraan. marka asxaabta keekii korkiisa waxayaan ku shubtay condensed milk caanaha macaanka oo gasaca. marka zaaid ayaan u jecelnaa keekii markaas sida aan ku cuno dhadhankii zaaid cream oo kale ayuu noqonaya. asxaabteeda qaaliga marka videogeen maanta intaas ayuu ahay. until then insha allah next video aan ismaqli doonaa with new recipe. dhammaantiina kheyr badan idin dhaaf adduunka meel walbaa ka joogtaan. and as always taxdigo xasuusta. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.